dhaxal waxaan ka haystaa abwaan dhaxal waxaan ka haystaa abwaan qays loo odhan jiray gabay baa markaa yuu noqonayaa la dhihi jiray baan uga jeedaa wax halmaan hadalku ma jiro haddii la dhihi jiray maaha salaanta islaamka maxaad ku tartamaysaa waxaan ku tartamayaa gabay gobolkaad ka socotaa gobolka Hargeysa gabayadu kala duwan ma maansa mise gabayga noocyadiisa kala duwan noocee waa maansageed maaso geed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت برنامج كان ذين هيا وكدوين برنامج كذي هوري برنامج كان ما برنامج عيار برنامج كان وقت بالي سوق لي وقت بالي وسو بحي ولا صوف كري وقت بدن باقي سو شقيني مركا برنامج كان عنده كوك الفريا هداد أول هوري هذا يقف وحبا قبسن جرين هذا وحبا قبسن كريسا تصالي وفي أنا ما أنت واتنو هورتين تاغيني هاي haddaba ku soo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan ninkan aad arkaysaan imika ag taagan ee mikrofoonka haysta ee u eeg dad kiimiga ka soo galay ama sidaad u taqaanaan baxeeraan waa taa aad arkaysid iminkana waad og tahay wuxuu yahay balse sawirkiisan ku ag taagan u malaynaysid qofkaan kuu sheegayo qofkan aan kuu sheegayaa aad aragtida mikrofoonka haysta waa qamar suugaani waqtiga waa taa aad ogeed siduu ahaa iyo dee waqtiga waxaana moodo xeeraan oo iska soo galay iska socdaa balse sababtuu fanaan ku noqday waxaasoo dhan ma ogidiin sababtuu ku noqdayna idinkaan indhihiin ku arki doonaa odayaasha guddiga ah ayaa niyadda ka dilaya oo ka odhanaya war orod doqon baa intay maraan baa tahay waxba garanaysid islama haysid gabay uu waqti soo geliyey oo ku soo rafaaday ayaa lagu yidhi waxaani gabay maaha waryaahe ee orod meelaha la dhac orod waryaa laga yaabaa iminka dadka sidaa ugu leeriyey ee sidaa niyadda ugu dilay inay haysihiisa daawadaan anuu markii hore waxaan islahaa qamar suugaani akhas berigaa sidaas buu u ekaa laakiin markay indhuhu ii kala furmeen wuxuu ahaa markii niyadda laga dilay ay ku yidhaahdeen waryaahe orodniyo waxbay islimahaysida wallaahi bilaahi aad iyo aad baan u murugooday miskiin yaroo sidaas waqti soo geliyey iminka waa miskiin sawirkan ku ag taagan qofkaasoo kale niyadda lakama dilo laakiin iminka is-oranba maysid waa isaga laga yaabaa odayaashan kale inay maanta sawir ay ka codsadaan kaale sawir ama inay la yaabaan ama inayna garanaynba inuu yahay ninkii cishadii ay niyadda ka dilayeen marka anigoo isla akhasma sidaas buu u eekaa ayuun baan arkay in dee niyadda laga dilay markaa ficilka ku dhalisay inuu horumarkan gaadhaa waxa weeyaan dee niyadda laga dilay ficil owgeed ficil waqti buu isgeliyey waata maanta kaale arag moodhal wuu noqon kara dirada hadduu tago waa stelishman waxaasoo dhanna sababtaan idinkuu soo qaadanayaa waxay tahay inaad maanta waxaad doontaad aad samaysan karaysaan wixii niyaddiina ku jiraa inaad ku dhaqaaqi karaysaan laakiin anoo is odhan mayno dee heesuhu waa horumar waa fan odhan horta horumar maaha laakiin ficilunbaa ku dhalisay ilaahayna ma barfankee laakiin ficil dee wuxuu niyadda ku jira weeye qof walbaaba waa inuu sameeyaa waxa niyaddiisa ku jira marnaba yuuna rajo dhigin iminka waataad og tahay 2 dumar uu soo guursaday 2 dumar oo 2 dumarba caaniin aadna ay u qurux badan yihiin waa nasiib sooraaniyo qaanjadii kale baad aragsan markaa dee barnaamijka idinkuma sii dheereynayo balse dee waa qiso tani qiso dhab ah indhaa ayaad ku aragta maanta heerkuu taagan yahay iyo berigaa heerkuu taagnaa in niyadda laga dilay berigaa maantana aanad is oranaynba waa isagii markaa dee iminka hays oranina ala waxbay isku yihiin wuu faaninayaa maxay wallaahi bilaahi tullaahi aad baan u nacbahay ninka fan ahaan laakiin shakhsi ahaantiisa ma garanayo laakiin sababtaan idinkugu soo qaatay waxa weeye inuu maanta dee qofku rajada iyo niyadda wuxuu ugu jiro hami iyo riyo wuxuu leeyahay inuu hal maalinun ka dhabeyn karo weeye taasi markaa idinkuguma sii dheereynayo waa in yaroo taliyo tusaale ah maanta wixii aad niyaddaada ku jirtaa haddaad ficil ahaan aad u samaysid wallaahi bilaahi tullaahi waad ka dhabeyn karaysaa haddaad afka ka sheegtidunoo aad meel iska fadhidid
weligaa horumar gaari maysid markaa waa tusaale dad badan baa jira isaguun baan anuu arkay oo dadkoo cacayo aflagaadeynaya balse anuu youtube-kan dar ilaahay aan ugu dhuftay markaasaan ilaa dhammaadkiisa markii hore ninkan bedowga waayo maan ogeen in niyadda hadhow laga dilayo macaal wuxuu yidhi berigaa idinkaa baalkan ku maqlaye gobolka hargeysa markaa anuu dee tusaale wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhaxal waxaan ka haystaa abwaan qays loo odhan jiray ma gabay baa markaa miyuu noqonayaa la dhihi jiray baan uga jeedaa waa halmaan hadalku ma jiro haddii la dhihi jiranina maaha cabdiqays sheegayey adigoo sidii ugu luuqaynaya dhuxgeel baydkii cabdiqays ka hadlaya dhaxal waxaan baad ka badway dhaxal waxaan ka yacni gabayga wanaagsan baad marisay ujeeddo wanaagsan baad ka hadashay waddankaad ka hadashay laakiin waxaynu mar hore ka hadalnay miisaanka gabayga inuu soo sugay waxaan anigu odhan lahaa macallin la-aan wax ma socdaan waxoogaa ku yar noqo aad baad u fiican tahay aad baad tacab badan baad u saartay abwaanaad weliba xustay oo si wanaagsan baad usoo qaadatay laakiin miisaanka gabayga dib ugu noqo waad mahadsantahay run aday ku maraysaa baan filayaa haa maanay soo gaadhay haa waa inan da'yar haddii uu dadaalana noqon doono abwaan gabayaaya kollayto dhaliilna lama waayo go'aankana gadaal buu ka heli doonaa waa tahay aad buu umahadsan yahay horta sida uu sheegay dee waxaa hadalkiisii inoo dhameeyey iyo go-aankii iyo gabaygiisa miisaankiisaba waxaa inoo wada dhameeyey hore in laga wada hadlana ma qurux badna mar haddii abwaan weeyaan dee odayadii imika ugu waaweynaa buu ku jiraa maxay ahde qiimaynta maxay ahde markay noqoto suugaanta dhinaca weliba gabayada jiibta codka intaba marka sidaa uu sheegay odaygu ayaan ku raacsanahay waana talo runtii wax ceeba oo imika dee lays odhanayaa ma jirto qofka wixii ka dhiman unbaa loo sheegay waxa leeyahay war waxaasaa kaa dhiman soo kororso kuna dadaal baan leeyahay aad baad umahadsantay waa tahay cabdilaahi waxaa ku harsa qiimaynta maxamedowe cabdilaahi aadan waya baan u yeedho kolley de waa la dhameeyey oo si fiican bay uga hadleen oo de macallinkii weynaa baa ka hadlay hurre marka xagga maxaan ku idhaahdaa haddii de waxaa la heli doonaa fursado fara badan oo kale masalan xagga markay noqoto bandhigga dareenka kaa laftiisa waxaa la rabaa inaad bandhig markaad hadlayso eed wax sheegayso in dareen aad muujiso oonad iska taagnaanuun marka dee sidaa hore lagugu sheegay weeyi soo dadaal waay bismi illahi raxmaan raxiim maxamed cabdilaahi aad baad u mahadsan tahay gabayga sidii aynu sheegaynay ama maansada waxaa la qaadayaa oo lagaa doonaya inaad waxyaabo gaara buuxiso haddii aad geftayna aanu ku xusuusino masalan gabaygaagu magac ma leey